الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، waxyaabaha shariicatu lislaam ay u timi in la ilaaliyo waxaa ka mid ah alcird, qofka sharaftiisa iyo dhegtiisa. waa ka yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fii xajati lwadaac isagoo u khudbadaynaya jamacii u badnaa ee muslim ee isu yimaada: ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا. نفتينا ديقينا مالكينا عردقينا يشرفتينو إنا يقاركود أما قاركين كوا كلا كحد قدبان حرام بيكتح غف ديقي سوداديو سيحق درام محولي سوقاتو ama cirdigiisa iyo sharaftiisa uu meel kaga dhaco. waxyaabaha cirdiga iyo sharafta waxyeela waxaa ka mid a waxaa loo yaqaana alqadf, oo qofkii in la yidhaahdo wuu zinaystay, faaxishada iyo xumaantaasuu sameeyey. qofka sidaa yidhi hadduu keeni waayo caddayn 4 markhaati oo raga oo weliba cuduula, shareecada islaamka dhexdeeda wuxuu ku leeyahay xad la yidhaahdo xad lqadf, waa 80 jeedal in lagu dhufto, sida ilaahay uu ku sheegay fii suurati nuur. waxyaabaha dadka cirdigooda iyo sharaftooda aada u dhaawaca waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano zinada. waa ka ilaahay yihi walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishata wasaaa sabiila. ha u dhowaanina zinada, ka fogaada. wax kastoo sababku ugu noqon kara foolxumada weyne zinada la yidhaahdo oo dadka sharaftooda iyo cirdigooda waxyeelaysa, nasabkiiyo abtirsiintana khalkhal inuu galo sababta, ka fogow. ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamay inuu yahay faaxisha, foolxumo weyn, iyo waddada u xune qof bani aadami baahida ilaahay subxaana watacaala uu ku beeray uu ku guto. waa ka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yidhi: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أوشك الله أن يعمهم بعقابه. زنada iyo ribadu hadday dad ku dhex faafaan oo ay ka ifbaxaan, noloshooda ay ka soo ifbaxaan, ilaahay wuxuu u dhow yahay ciqaabkiisa inuu ku caam yeelo. maxaad u malaynaysaa waxaa loo yaqaano zinada oo markeeda horeba foolxumo iyo dembiyada waaweyn ee cadaabu lqabriga iyo cadaabu naar kaba sababa, haddii ay raacdo qofku xoog iyo khasab inuu ku zinaysto. qof la ogol qofku haddii uu la zinaysto ayay dembi weyn tahay. maxaad u malaynaysaa qof cafiif oo dhowrsoon oo zinada aan doonahayn hadduu zinada ku khasbo uu ku sanduleeyo oo u xoog sheegto? sidee buu arrinku noqonayaa intaa dabadeedna qofkii haddii uu dilo oo uu galo dembiga ugu weyn ee qof bani aadami uu galo marka gaalnimada laga yimaado, sida culamaa lislaam ay isku waafaqsan yihiin? dembigii baa sii weynaanaya, foolxumadii baa sii kordhaysa, dhibaatadii baa sii badanaysa. baryahan dambe waxaynu in badan maqalaa warar fara badan oo meelo kala duwan ka imanaya oo dhulkaa soomaalidu ay degan tahay ka mid ah, oo sheegaya hablo la fara xumeeyey oo la kufsaday oo haddana dil loogu daray. arrinka noocaasi wuxuu u baahan yahay in dadka muslimiinta ah, hadday tahay culimada dadka wacyigeliya iyo hadday tahay dadka af soomaaliga iyo suugaanta dadka ku wacyigeliya, in dadka aada looga wacyigeliyo. arrinkaas wuxuu u baahan yahay in lala faguro. waa dhici jirtay qof inuu khaldamo foolxumada uu sameeyo, laakiin waxyaabaha inagu cusub ee inta badan aan dhici jirin waxaa ka mid ah
qofkii dilla in loogu daro waa in la isweydiiyo waa xanuun ka mid a xanuunada bulshooyinka ku dhaca xanuunkaas sababtiisu waa maxay xanuunka marka sababtiisa la ogaado ayaa laga hortagi karaa marka sababtiisa la ogaado ayaa dawo wax u tartaa loo sifayn karaa dadka xanuunkaasi uu hayo ma aha in lagu kaaftoomo dhacdadu marka ay dhacdo in laga warramo laga sheekeeyo oo lagu soo celceliyo ama la dhaleeceeyo waxa inta lagu darayaana ay noqoto in sanado kooban la xidho dadka faldambiyeedyada noocaasiya samaynaya waxaa muhiima in daraasiye cilmi baadhis dhaba la sameeyo oo arrinta laga eego xagga shareecada oo laga eego xagga dhaqanka bulsho oo laga eego xagga dhaqaalaha oo laga eego dadka faldambiyeedyada noocaa samaynaya sifaadka ay leeyihiin iyo dhaqamada foolxumadaasi u geynaya iyo waxyaabaha dembiyada kale ay sameeyaan ee dembiga noocaasi ee weyne foolxun inay ku dhacaan sababaya asbaabta muuqata waxaa ka mid ah oo ay tahay in la daweeyo haddii la rabo xanuunka in laga hortago dacfu liimaan qof aan iimaan lahayn ama iimaankiisu uu daciifay oo uu taag daraaday oo weydnimo uu ka gaadhay inuu xumaanta noocaasi ah iyo foolxumadaasi ah wax laga xishoodo uu ka celin waayey ayuunbaa faldembiyaadka noocaasiya sameeya qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam alxayaau waliimaanu qurina fida irtafaca axaduma irtafaca alaakhar iimaanka iyo xishoodka waa la ysku laday buu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qofka intuu iimaankiisu leegyahay buu xishoodkiisu leekaanaya intuu xishoodkiisu leegyahay buu iimaankiisuna leegaanaya hadduu iimaankiisu hoos u dhaco xishoodkiisuna hoos buu dhacaya hadduu xishoodkiisu hoos u dhacana iimaankiisay ka go-an tahay liana alxayaaa min aliimaan suu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam way xishoodku iimaanka ayuu ka mid yahay haddii midkood meesha uu ka baxa buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka kalena wuu raacaa waxaynu ogsoonnahay qof inuun damiir leh oo xishoonaya foolxumada noocaasi ah inaanu u badrheerhayn oo aanu haddana dil raacin ahayn qof damiirkiisu uu dhintay xishoodkiisina uu baaba-ay ama uu yaraaday ayuunbaa arrinta noocaasiya ku dhaqaaqa walihaada wadamada uu kufsigu ugu badan yahay oo wadamada gaalada munadamatu asixa alcaalamiya waxay sheegtay 90 ilbiriqsiba wadamada reer galbeedka inuu kufsi ka dhaco hamoodina inay run inoo sheegayaan faldambiyeedyada dhulka muslimiinta ka dhacaya oo tiradooda marka la eego kooban ayay buunbuuniyaan laakiin faldambiyeedyada noocaasiya iyaga u asala xaggooda aanay ka soo maaxaan dhulkooda aanay ku badan yihiin waayo iimaankii iyo xishoodkii faldambiyeedka ka celin lahaa ayaanay lahayn oo ay ka maran yihiin idan dadka waa in loo sheego waxyaabaha iimaanka daciifiya si ay uga fogaadaan waxyaabaha iimaanka kordhiya kobciya ee ziyaadiyana bulshada waa in aada loogu wacyigeliyo asbaabta waxaa ka mid ah in la khilaafo sidii ay shareecadu amartay ragga iyo dumarka ajanabiga kale ahi inay u wada dhaqmaan shareecadu waxay diiday ninku inuu gacan qaado gabadh ajanabi ka ah oo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi laan yuطcana fii ra'si axadikum bimikhyati min xadiid khayru lahu min an tamasa yaduhu yada imra'ati laa taxilu lahu midkiin mudac xadiida in madaxa lagaga mudo ayaa u dhaanta inay gacantiisu taabato gacanta gabadhaan xalaal u ahayn xaaskiisii aan ahayn maxramkiisiina aan ahayn aad bay maanta inoola sahlantahay taas waxaanay ka mid tahay wadooyinka zinadu dadka ay usoo marto waxaa la amray raggu inay dumarka indhaha ka laabaan ajanabiga ka ah waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum bal u fiirsa aayadoo sida labada arrimood la isugu xidhay u fiirso muuminiinta waxaad ku tidhaahdaa indhahooda ha laabaan
cawradoodana xumaana ka ilaaliyaan. maxaa loo xidhiidhiyey? lianna aluulaa sababun lithaaniya. indhahoo la laabi waayo oo ninku uu daawado dumarka ajanabiga ka ah, talabaad oo ah zinada iyo foolxumada ayay sabab iyo waddo u tahay. iimaankana waa la sheegay, waayo iimaanka ninka ka celin kara iyo gabadhaba wax xaaraankaa inuu eego. foolxumada, faaxishada, zinada iyo waxyaabaha la halmaalay raacana iimaanka ayaa ka celin kara. walihaada baa saddexdaasi la xidhiidhiyey. waxaa ka mid a waxyaabaha ay shareecadu inoo diiday ee xumaantaasi sababa ee maanta aynu sahlanayno alikhtilaat bayna alrijaali waannisaa, isdhexgalka rag iyo dumarka ajanabiga kalaa, goobaha waxbarashada, goobaha caafimaadka, gaadiidka la raaco, suuqyada dadku ka adeegtaan, meelaha riwaayadaha lagu dhigaayo oo asbaabtii zinada afka ay ka taagan tahay, oo heesta lafteeda bariidu zina suu yihi cabdullaahi ibnu mascuud, dhambaalsidaha zinada weeye heesto, iyo dumarkii oo isa soo qaawinaya o tabarujkii samaynaya, iyo muusigii oo la garaacayo oo isaguna dadka dareenkooda kicinaya. waxaasoo dhami way nala sahlayiin, waana asbaabta kufsiga iyo zinada noocyadeeda kalaba. waxaa ka mid a khulwat rajul bilmar'ati alajnabiya, ninku inuu meel kula gooni noqdo, uu ka aamin yahay cid kale inay ugu timaado ama ugu soo gasho gabadh ajnabika oo xaaskiisii aan ahayn, maxramkiisiina aan ahayn. bal culimadu waxay sheegeen markuu fasahaadku farabato, dadka iimaankooda iyo diintooduna ay daciifto, in xataa dadka maxramka isu ah ee dhalinyarta ah in khalwada iyo meel inay ku gooni noqdaan laga ilaaliyo. inanka iyo eddadii oo labadaba dhalinyar yihiin, ama habaryartii iyo maxaarimta kale la midka ah, maxaad u malaynaysaa kuwaan maxramnimo aanay ka dhaxayn? qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam fima rawaahu axmedu wاtirmidiyu laa yakhluwana rajulu bimra'a ila kana haalithahuma الshayطaanu. nin hadduu gabadh meel kula gooni noqdo, yani aan maxramkiisa ahayn baa loo jeedaa, ka saddexeeya wuxuu noqdaa shaydaan. shaydaan wuxuu farayo iyo wuxuu qurxinayana waynu garanayna. wa qaala calayhi الsalaatu wasalaam fima rawaahu canhu cabdullaahi bnu cabaas laa yaxilu lirajuli yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir an yakhluwa bimra'ati laysa baynaha wa baynahu maxram. xalaalu maaha nin ilaahay iyo aakhiro rumaysan inuu meel kula gooni noqdo, xafiis ama meel kale, gabadh maxramnimo aanay ka dhaxayn. waxay culimadu sheegeen meeshu hadday tahay makaanu riiba, meel shaki dhalinaysa, in qofka lagu inkiro oo lagu yidhaahdo gabadhan aad cidlada la taagan tahay ama aada la fadhidaa hadday tahay maxramkaagii, sharaftaa ka dilina meesha ka kaxee, haddii kalena inaad meeshan kula gooni noqotaa xalaal kuma aha. aimada saa sheegay waxaa ka mid ah alimaam almaqdasi, qofka wanaagga dadka faraya xumaanta reebaya ee muxtasibkaahi waa inuu sidaa yeelo. boolisku arrimaha noocaasi anshaxumada ah waa inay la dagaalamaan, in la suga maaha. inanka iyo inanta ku ballamaya meelaha madow iyo seesyada dushooda iyo meelaha huluulaha ah iyo meelaha magaalada ka baxsan, waxaa laga yaaba dembi looma arko. waxaa laga yaaba booliski inaana dembi o arag waxna ka qaban ahayn, laakiin arrintaasi maxay waddo u tahay iyo sabab? faldembiyeedka weyne kufsiga ah ama zina la isla ogol yahay meesha inay ka dhacdo. marka ma waxaynu sugaynaa inta ay natiijadu imanayso ee faldembiyeedka weyne uu dhacayo? ma intaasaynu sugaynaa? waxaa ka mid ah asbaabta xidhiidhka aan sharciga ahayn ee dhex mara ragga iyo dumarka ajnabiga kale ah. ninku hadduu doonayo gabadha inuu guursado, waddada guurka loo maro waa la yaqaanaa. haddii kalena sheekadan iyo maaweeladan iyo hadalkan dheer ee sanadada soconaya, nataa'ijta uu dhalo taasaa ka mid a. asbaabta waxaa ka mid a wasaa'il ulcilaam, wartabiyeyaasha soo daynaya musalsalada foolxumadu ay ka dhex muuqato, ee kicinaya dadka dareenkooda, ee kuwa iimaankooda uu xidhi waayo xagga xumaanta u dhaqaajinaya.
waxaa ka mid a sawirada khaliica ah ee tv-yaasha websaydada facebooka iyo meelaha la midka lagu faafinayo ee dhalinyartu marka ay daawadaan dareenkoodu uu isbedelayo kadibna ka iimaankiisu uu qaban waayo xagga xumaanta arrintaas ay u dhaqaajinayso asbaabtu aad iyo aad bay u tiro badan tahay waajibkuna waxa weeye xanuun kastoo xanuunada bulshada ku dhaca ka mid a in la daraaseeyo oo si fiican loogu fiirsado maxaa keenaya kadibna asbaabta lala dagaalamo iyo wadooyinka bulshada uu soo maraayo aqulu qawlii hada waastaqfiru llaha lii walakum alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله زندا كفصيغا يفل دنبيه إذا لا حريرة وحيابها الصابوحة كم إذا الدروقة عالم كان مركي للدراسيي فالدنبيات ككفصيغا ضدك كوكعا بدن كودو ومن المدمنين للمخدرات والمسكرات ودadka qabatimay caadaystay daroogada maandooriyaha khamriga iyo waxyaabo la midka ah waayo maandooriyuhu waa umul khabaa'ith aslu al-fasad wash-shar isaga asal waa shar iyo fasaad oo dhan wuxuu yiri khaliifadii muslimiinta amiirkii muuminiinta saxaabiga ahlul jannaha ahaa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu النسائي وكوريه بإسناد صحيح اجتنبوا الخمر فإنه أم الخبائث خمر واحد لا كفو هذا حمان ودنبو أسل وياهي أو صبابا إنه خمر عبو تاسن وكدن بابارن كيسو كويا كان مايو كدب وحو شيء قصة الله يابله وحو شيء إن عبادة بطنا وولي بدتك كدح بحي سياني ومشغولين وعبادة وقعن بنان هذا oo gabadh aan hagaagsanayni ay fariin u soo dirtay oo ay tiri arrin baanu doonaynaa inaad marxaati ka noqotee guriga noogu kaalay dabeetana arrinta noocaas iyo run uu mooday oo gurigii uu soo galay albaabku weydaartaba dusha lagaga xidhay halkii ugu dambeysay wuxuu ugu tagay gabadhii u yeedhay oo gabadhaadu qurux badan oo wirwiraysa ah waxay ku tiri marxaati waxaan kuugu yeedhayay inuu ma jiro ina yar baag jooga haan khamriina way ag taallaa iyaduna meesha yururtaayo ay fadhidaa waxaad kala doorataa saddex arrimood inaad aniga xumaan igu samayso ilmaha yar inaad disho khamriga inaad cabto haddii kale oo saddexda midnaba aad yeeli weydo waan kugu qaylinayaa oo xumaan buu ii soo doontay baan odhanaya kadibna waad fadeexadoobaysaa saddexdii markuu isu miisaamay miisaanku dhab ahaan uu ka khaldamay wuxuu is yidhi malaa khamrigaa ugu sahlanoo biyaha yaro kulul iska fuuqsoo dabeetana iska tag laakiin waxaanu garanahayn sida Uthmaan uu sheegay umul khabaa'ith inuu yahay khamrigii buu cabbay koobkii horreeyey markuu cabbay uu fayaamay mid labaad keena buu yidhi uu ku daray mid waa sii macaansaday ilmihii yaraa buu dilay iyadiina uu ka zinaystay فاجتنبوا الخمر فإنه لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا أوشك أن يخرج أحدهما الآخر والخمر يكف هذا بيقول عثمان وحتريس كوجا جبي خمر يكف هذا لبدا صدق قف كلمان وقف مركور إيمان لها خمر وعبه لبدا متكودون باك كلام إيش كسارة إيمان كيبا حوق بطا وخمر جاينو يسكت هاي الصابة أما خمر عبستي بوصيب بديا حمارك كلنا دبتنا وصيب سمايا كدبنا إيمان كبوايا ومركز دنبق قال لي ما يكون دنبيا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أسباب توحى كم ذا أحكامتي إلهي وسودتي هي عقابية إلهي وشدية وحكمي إدتك فالدنبيدي هذا النوع عاصية السماية إلهي ويالي مناسب كقواها الله أدومها أبو رعد كتقاناني تشيرين وأجي هاي إنيهين عقابية ضدك فالدنبيات كعلن كرا أيام أنت ماشي لك صاري إلى الحدود يا عباد الله قفك الزنا يستا
isagoo guur sharciya soo maray in la rajmiyo qur-aanku waa sheegay sunnuhuna waa sheegay nebiguna waa fuliyey khulafadii muslimiintuna waa fuliyeen kaan guur sharciya soo marin in la jeedeliyo suuratu nuur bay ku xardhan tahay marka arrintaa shuruuddeedu ay dhamaystiranto maanta maxaa loo arkaa xuduuddaa fulinteeda irhaab baa loo arkaa caalamka marka la eego waxaa loo arkaa inay tahay takhalluf iyo caalamka hadh iyo quruuntii dhexood dib loogu noqday dabeetana waa taa la leeyahay 90kii ilbiriqsiba kufsi baa dhacaya dee wixii kufsiga ka celin lahaa iyo zinada soo digan caaya adigu ee allaha abuuray addoomaha adiga ka yaqaana uu ogaa inay xumaanta noocaasi ah dadka ay ka celinayso ka wax kufsanaya hadduu gaadho xumaantii uu socday oo sinadii uu sameeyo oo isagu uu qirto ama markhaatiyaashii ku filaan loo helo waa in hadduu soo maray guur sharciya waa in dhagax lagu dilo haddii kale waa in 100 jeeda lagu dhufto hadduu gabadhii kufsaday laakiin aanu xumaantii gaadhin maaha in la odhanayo dembi ma samayn xadkii ayuunbaa ka dhacaya aynu hore u tilmaannay laakiin in la tacsiiro weeye tacsiirtu waa ciqaab qadar go-aan aan lahayn oo xaakimka muslimka ahi uu arko in faldembiyeedka noocaasiya dadka uu ka hor istaagayo tacsiirtuna way isbedbedeshaa markuu faldembiyeedku badan yahay iyo markuu yar yahay marka faldembiyeedka dadka qaarkood ay sameeyaan markay kuwa kala sameeyaan way kala duwantahay tacsiirtu wax meel fadhiya maaha waxa weeyaan xadhig waxa weeyaan kooban oo marar badanna lagala baxsado ayaa laga dhigay ciqaabkoodii deetana markuu xadhigii ka soo baxo halkiibuu ka sii wadaya jeelka uu galayna wax dhaqan celina looguma samayn bal waxaa laga yaabaa macallimiin isaga ka sii daran iyo saaxiibo xunxun halkaa inuu ugu tegey oo farsamooyin kaleo kuwii hore kasii fool xun isagoo soo bartay meesha inuu ka soo baxo ayaa marar badan dhacda ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqo arrimaha oo dhan sharciga ilaahay ha lagu miisaamo sharciga ilaahay iyo diinta ilaahayna ha lagu daweeyo asbaabta waxaa ka mid a albataala camal la-aanta shaqo la-aanta qofka bani aadamka ahi inuu camal iyo shaqo xalaala gacanta ku hayaa waxyaaba badanoo xun bay ka mashquulisa walihada bn cabdillahi bn mascuud in allaha laa yuxibu an yakuna rajulu sabahlan laysa fi amri dunya walaa fi amri laakhira ilaahay ma jecela ninku inuu noqdo baagaamuundo bilaa camal arrin adduunyo mid aakhiro midnaba gacantaan ku hayn xumaano badan bay dhasha qofka dhalinyartahay haddaanu mashquulin waxbarasho ku mashquulin haddaanu shaqo ku mashquulin waxaa dhacaysa warar badanna ay u imanayaanoo moobilkiisaas uu yahay dhuun xuno waxyaabo fara badan oo xume ay ka soo butaacayaan inuu xumaanaha noocaasiya ku fikiro ayaa dhacaysa asbaabta waxaa ka mid ah tabarujka dumarka gabadhu inay gurigii ka baxdo iyadoon xidhnayn xijaabkii ilaahay ku waajibiyey ninkiina uu eego eegmadii xaaraan tahay kadibna hadal uu ku xigo kadibna waxaa raacaya camalkii iyo dhaqankii xumaa uu noqdo inay dumarku xidhaan dhar bilic leh oo indhaha ragga soo jiidanaya way khilaafaan qowlka ilaahay yihi walaa yubdiina ziinatahunna inay cadar isku buufiyaan ama uunsi dharkooda ama jirhkooda ku shidaan markay guryahooda ka baxayaan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay gabadha sidaa yeesha inay zaaniyad tahay zinaba inaanay samayn baa laga yaabaa waa zaaniyad macnaheed waa maxay macnaa wixii zinada sababaya weeyaan waxaanay samaynaysaa marka asbaabtii oo bulshada dhexdeeda faafsan in natiijadii uun laga qayliyo oo iyada uun la dhaleeceeyo oo iyada uun ciddii samaysa lagu ciqaabo deetana natiijada iska daba timaado ay soo korodho taasi dawo noqon mayso yaa cibaad allah gaalada waa idinka arkayoo waxbay xidhaan dadka waxyaabaha sameeya ciqaabyo qaarab way sameeyaan haddana xumaantu way ku sii korodhaa uun ooduun bay sii jabisaa waayo asbaabteediibaa dhulkooda iyo dadkoodaba ka buuxda marka asbaabta aynu la dagaalano iyadoo qofka sameeya ciqaabku mudnaa la marinayo laakiin asbaabta keenaysa
aynu la dagaalamo. faina min qawaacid الshariica sadu daraa'ic almufdiyati ila اlfasaad. qawaacidda shareecada islaamka waxaa ka mid ah ee qur-aanka iyo sunnuhuba ay tusiyeen waxyaabaha dadka xumaanta gaadhsiinaya u sababaya in la awdo oo la xidho iyo arrimaha fasaadka waxa weeyaan sababaya. allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.